Hay'adda samafalka ee Ramadhan Charity Foundation ayaa deeq raashin ah oo ka kooban bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir gaarsiisay qoysas danyar iyo ogoon isugu jirta oo ku dhaqan magaalada Qabri Dahar si ay u isticmaalaan bisha barakeysan ee Ramadhan. Qoysaskan oo ka koobnaa 110 qoys ayaa waxaa munaasabadii lagu bixinayay ka soo qayb galay xubnaha hay'adda samafalka ee Ramadhan Charity Foundation oo ugu horeeyo xoghayaha guud ee Ramadhan Charity ahna kusiimaha gudoomiyaha hay'adda Mudane Cabdifataax Shaafi Cabdiqadar, culimo diin iyo qoysaskii loo qiiminayay raashinka. Hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan: waxaan halkan ku qaybinaynaa raashinkaas oo barnaamijka afurinta dadka danyarta ee magaalada Qabri Dahar. barnaamijkan oo ahaa mid soo socday 3 sano u dambeysay labadii Ramadhan ee hore iyo Ramadhan tanba aan ugu talagalnay dadka danyarta ah. alxamdulillah rabbil caalamiin, maanta waxaan ku guda jirnaa waa maalintii qaybintii raashinkan oo siinayna dadka danyarta ee ku nool magaalada Qabri Dahar, agoonta iyo dadka dhimirka xanuunsanaya iyo dadka maxaan ku dhahay tabaalaysan saaxiib ciyaalka ah aan ugu talagalnay. raashinkan haddaan ku horeyno waxaa la soo baxay oo dhaqaale ahaan nagu soo gaarsiiyay dhalinyaro ku sugan dalka dibadiisa, gaar ahaan waddanka Mareykanka. dhalinyartaas oo maxaan ku dhahay ku sugan gobolka Minneapolis magaalada Minnesota. aad bay u mahadsan yihiin dhalinyartaasi. $5,500 oo doolarka Mareykanka ay soo gaarsiiyeen. Ethiopian ahaan markaan u sarrifnayna waxay noqotay lacag $280,000. marka aad bay u mahadsan yihiin. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي ومحمد سبحانه وتعالى ummadiisa ka soo dhaxsaaray dad u fikira dadkooda danyarta ah oo waxa weeye intuu ka qaado intooda wax haysato intooda waxba haysanin ku celiya. Allah subhanahu wa ta'ala jamciyadda Ramadhan Charity aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa isxilqaankaas ay sameeyeen. inta haddaan ka gudbo waxaad ogtihiin bishan soo socota ee Ramadhan inay tahay bil aad u fadli badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waxa weeye u siiyay hadiyad u siiyay ummadda Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam habeenka ku jira ee la yiraahdo Laylatul Qadriga. habeenkaas ummadii hormayna lahaan jirin, soon wuu jiri jiray laakiin Ramadhan ma jiri jirin, Laylatul Qadr ma jiri jirin. wuxuu dhigmaa waxa weeye kun habeen buu ka khayr badan yahay 83 sano bilo ayuu ka khayr badan yahay. ummadana hadiyad loo siiyay bishii noocaas ahayd ayaa inagu soo foole oo ay go'oldigeedii tan ka mid tahay. wuxuu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam ruux afuriya hal ruuxii afuriya bisha Ramadhan wuxuu helayaa ajirkiisii kii la afuriya ajirkiisii ajir leeg buu helayaa isagoo midkoodna wax laga nusqaaminaynin. marka waa bil wixii lala baxay uu ka fadli badan yahay bilaha kale waxyaabaha lala baxo, camalka la qabtay uu ka fadli badan yahay camalada kale la qabto. waxaanu ugu baaqaynaa dadka Ilaahay wax siiyay ee muxsiniinta ee hantilayaasha maamulada cid allaale cid xilkaasoo inay garab istaagto waxa weeye Ramadhan Charity oo ay waxa weeye waxooda ugu dhiibaan dadka masaakiinta oo iyaguna ay waxa weeye si xilkasnimo ilaa hadda intaanu ku ognahay si xilkasnimo ayay waxa weeye wax ku wadaan dadka ugu mudnaabay soo saaraan gacantana way ka geliyaan wixii loogu dhiibay. marka inaynu waxaynu dhan gacanta ugu dhiibno si ay waxa weeye nooga fududeeyaan hawlo badan oo ina qabsan lahaa haddaynu gacanteena ku qaybin lahayn ayaan ugu baaqayaa ummadda wax alla u dhiibay. dadka masaakiinta ana waxaan ugu baaqayaa iyaguna inay ku sabraan faqriga iyo waxa weeye baahida ummadana u duceeyaan. nabigu wuxuu oran jiray alayhi salaam hal tunsaruna wa turzuquna illa bi'adhafaikum. ummadda waxa lagu gargaaro haddii cadow is hayaan, awaaraha waxa laga jabiyo, cudurrada waxa laga dulqaado waa masaakiinta ducadeedu. marka masaakiintu inay dadkooda u duceeyaan si iyaguna waxa weeye inta Ilaahay maal siiyo ay maalkooda wax uga helaan iyaguna inay saas yeelaan kuna sabraan kuna duceeyaan ayaan ugu baaqayaa. aad baad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. soo waafajiyay makaankan aan joogno ee masaakiinta maanta qiimaha wanaagsan u leh dhalinyarada isxil qaantay xooggoodii iyo maskaxdoodii bixiyay inay dadkooda u adeegaan baahidana inta awoodooda wixii soo gaadha ay ka bixiyaan. dhalinyaradaas
yaan alla ugu mahadinaynaa waafajinta ilaahay waafajiyey isagaa mahadda iskale mahadda labaadna iyagaa leh ta saddexaadna waxaa iskale ciddii wax u dhiibtay ee ku aamintay hantidoodii inay dadka ehelkooda masaakiinta ay gaadhsiiyaan si ay baahida ay uga caawiyaan wixii ay hadba karaankooda sidaa darteed dadka muxsiniinta ee ilaahay hantida siiyey inay ka faa'iidaystaan hantidooda oo dadka walaalahooda ay soo gaadhsiiyaan dhalinyarta isxil qaantay ee sida wanaagsan wax u maamulaysan ay soo gaadhsiiyaan taana waan ugu baaqaynaa qolada wax la siinhayana inay ku sabraan ilaah baa u gartay sidan addoonnimo garanin qaybtiiyo garashada ilaahay baa iskale